laakiin walaalkayga sooman oo habeenkii naasir salaatuleel isla tukanayni oo ilaahay isla barinayni ayaa waxa la ii keenay meedkiisa. waa Faadumo Maxamed Ibraahim oo la ilmeynaysa dil uu askari ka tirsan ciidanka dawladda u geystay wiil la dhashay halka mid kale uu ku dhaawacmay dhacdadaasi. muran dhexmaray askariga iyo wiilka dhintay ayaa lagu sheegay sababta keentay in askarigu adeegsado rasaas dishay wiilka kan kalena uu dhaawac ka soo gaaray. Faadumo Maxamed Ibraahim ay nooga sheekayso sida ay wax u dhaceen iyo walaalkeed xaaladii uu ku sugnaa marka falku dhacayay. waxaan ku sheegayaa horta Cabdishakuur saacado ka hor ayaa iigu dambeysay inta aan bajaaj soo raacay oo guriga imaanay ayaa iigu dambeysay wax yar ka bacdina telefoon ayaa ii soo dhacay. walaalkay xaqiiqdii markaan aan ka soo tagay meel carwo ayaa uu soo tagay uu ka shaqeysanayo nolol maalmeedkiisa oo nagu soo dhicinay. wax yar ka bacdi qadadu isoo siiyo ii soo gaday afkayga ma saarin markaan aniga gacmaha dhaqan rabay waxaa la yiraahdaa walaalkaaga isbitaal Madiina u yaalaa. maxaa jiraan dhahay waa ku naqi telefoonka wiilka uu iga qaban waayay mar labaada wacay wiil kale iga qabtay. Cabdishakuur dhaawac waaye isbitaal Madiina imaaw because markaas maxaa yeelay anuu igu qancinayay waa orday isbitaalkiyaan tagay isbitaalka markaan tagay ilaa ruuxu meeduu ahaa way fiiriyeen meel been ay ii direen marba meel been ay ii direen markii dambe waxaa dhahay walaalkayga la ii tusiyo ugu dambeys waxaa la dhahay walaalkaaga wuu geeriyooday ee qolkaan uu ku jiray kaale u gal. walaalkay macaan waa u galay waa arkay ya naf kastana mood way sugaysaa maalintii igu imaatay hooyadayda dhimatay adduunyo waxay tahay aan ka sabray maalinka igu xigtay aabahay macaan aan jeclaay baxay maanta oo ii labayso walaalkayga macaan ayaa iga tagay. hadinto geerida xaq waaye gacanka xaqdan ayaa dishay geerida ma diidaayo qof islaam ahay laakiin walaalkayga sooman oo habeenkii naasir salaatuleel isla tukanayni oo ilaahay isla barinayni ayaa waxa la ii keenay meedkiisa. waxaan ka codsanayaa Allah subxaanahu wa ta'aala yawma tubla saraa'ir maalin aan sir la qarsan karin ayaa jirto oo awood aan jirin oo quwadna aan jirin maalinkaas ilaahay ka tuuga inta ka horeyso madaxda sharafta leh dawladda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha kulli waxaan ka codsanayaa haday cadaalad ay jirto wiilka ardayuu ahaa oo miskiin ah hooyo aabo uma nooleen ani asaga hooyo aabo isku ahayn maanta indhaha ay beeliyeen Allah laakiin indhaha ima beelinin. caruurtii uu gacanta ku hayay korintooda marxuumka ayaan weli rumaysnayn dhimashadiisa balse waxa ay ka waramayaan markii uu Cabdishakuur guriga ka tagay oo ugu dambeysay waxa uu ku dhahay maxaa ku keenan ku dhahay kaba ishaati sekiyeele muku iide ودعي أنا وحكستني دينا أنا قربكينا. luul cali maxamed waxa ay qaraabo la tahay Cabdishakuur oo maanta lagu soo aasay qabuuro ku yaala Muqdisho. waxa ay ka waramaysaa markii Cabdishakuur geeridiisa ay maqashay sida ay noqotay bashaashnimadii iyo halgankii uu ku jiray marxuumka la dilay. waxa ay noo sheegtay in uu horay u qorsheynayay in uu guursado balse isagoo qoys walaalihiis iyo caruur ka kooban oo biil ka sugaya darteed uu isaga daayay guurka. soomanoo dhintay kulay ajirkiisi Ilaah baa soo koobi kara wiil dabeecad iska furfuran bulshada jecel oo ehel kaalmeynaayo qaraabo kaalmeynaayo anaga dhanna kaalmeynaayo waxa walaashiisa laba gabdhood asaga waa saddex labaas gabdhood uu kaalmeynaayo garbo uu ahaa ilmaha agoonta aabiis ka dhintay wuu biilay garbo uu ahaa. waxaan ka codsanaynaa ninkaas dilay la tuhmaya hadda oo maalin ka hor la yiri nin askari ba isla hadleen qoriyuu baadkiisa ku garaacay geeridaana way imaatay bariye kadib dhawaanahan dambe waxaa dhahay aboowe hooyo nooma nool aabana nooma noolo waxaa la rabaa qarashaa la rabaa wax kasta la rabaa arintan ka fiirso wuu haminay laakiin waxaan dhigi jiray arintan ka fiirsa ku degdegin markii insha Allah isbixisid oo Ilaahay gacantaada wax si fiican u soo geliyo insha Allah markaas hamiyaan dhahay hadda anagaaba miskiin ah. Saalax Cali Xasan waxa uu saaxiib la ahaa marxuumka wuxuuna nooga sheekeeyay aqoonta uu lahaa iyo xilligii aragtidiisa ugu dambeysay. damo dhimana daradan isku dambeysay maqribadii
waa kala tagnay habeenkii bis kala maqneen suuxi waxa la soo sheegay geeridiisa la soo sheegay wallahi aadan ugu walwalay aadan u naxay waa argagaxay saaxiib kaliya ima ahaan walaal ayuu ahaa qaraabo koraadna waa isku ahaan dilkana wuxuu ka dhacay meel shaqadiisa oo Seebiyaana Cabdishakuur Cali Maxamed waxa uu sanado ka hor dhameeyay jaamacad ku taala Muqdisho waxa uu aabe camal u ahaa walaalihiis iyo caruur walaashiis dhashay uu gacanta ku hayay balse askari ka tirsan ciidamada dawladda ayuu gacantiisa ku baxay isagoo goobtiisa ganacsi jooga sooman waliba Qur'aan akhrisanaya dilalka askarta dawladdu u geystaan dadka rayidka ah ayaa joogto ka noqday magaalada Muqdisho muddooyinkii u dambeeyay waxaana muuqata inaan wali loo helin xal lagu joojinayo xadgudubyada askarta dawladdu ka geysanayaan magaalada Muqdisho una geysanayaan dadka rayidka ah. Cabdikariim Cali Aadan, Goobjoog, magaalada Muqdisho.